بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال halkani waa channelka wararka dunida qodobada wararka xiisaha leh ee aan xiliga kan idin hayno waxa kamid ah guddigii ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo fashilmay iyo xubin ka tirsan guddigaasi oo ku dhawaaqday in ay iscasishay wararkii ugu dambeeyay waan idin haynaa wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo mooshin laga gudbiyay waa kuma wasiirkaasi warka ayaa ku daawa doontaan guux far badan oo ka dhashay musuqmaasuqii hanti dhowrka guud ee qaranka uu ku eedeeyay hay-adaha kala gedisan ee dawladda Soomaaliya iyo xalka qaadis ku soo wajahan hanti dhowrka guud ee qaranka fadeexad intee leeg ayay kala kulantay dawladda Soomaaliya warbixintaasi kacdoon siyaasadeed oo ku bilowday Saciid Dani hogaamiyaha Puntland xilli laga baajiyay maalintii shalay safar uu damacsanaa in uu ku tago Kismaayo waalidii soo gudbin doona wararka Puntland Somaliland oo si kulul ugu jawaabtay Cornel Caare sarkaalka hogaaminaya jabhadda ku kacsan Somaliland qodobadaas ayaad warka ku daawa doontaan daqiiqadaha na soo aadan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan channelka subscribe haadin ahaado si aad u heshaan muuqaalada xigaha tan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan fadeexad culus ayaa ku soo baxday guddiga farsamada doorashooyinka Galmudug oo ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xubnaha guddiga ayaa waxa ay ka kooban yihiin ilaa 13 xubnood oo kala matalaya beelaha dega Galmudug inta badan xubnaha guddigan ka soo muuqday ayaa ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa xusid mudan in qaar ka mid ah guddigaas ay ka mid yihiin shaqaalaha rayidka ah ee dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waxa guddiga ka soo muuqday qaar ka tirsan la taliyaal wasaaradeed oo daacad u ah dawladda federaalka ee Soomaaliya dad far badan ayaa ka yaabay guddiga ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ay ku jiraan xubno ka tirsan kooxda ololaha xoogga leh u wada musharaxa madaxweyne ee Galmudug Master Qorqor kuwaasi oo safarkiisa Dhuusamareeb u raacay Qorqor arintan ayaa dad far badan shaki ay ka qaadeen waxaana is weydiiyeen sababta dawladda federaalka Soomaaliya guddiga ay magacawday qaar badan oo kamid ay yihiin shaqaale ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waxa iscasishay xubin ka tirsan guddigaasi Xaliima Cabdi Cali oo kamid ahayd guddigaasi ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay iska casishay xilkaasi walow aysan sheegin sababta rasmiga oo ay xilka isaga casishay taas oo sidoo kale qayb ka ah fadeexada soo wajahday guddiga ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya warar kale ka imaanaya magaalada Dhuusamareebna waxay sheegayaan in saraakiisha Ahlus Sunna wal Jamaaca ay aad kaga soo horjeedaan guddigaasi ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya warar imanka soo ifabaxayana waxay sheegayaan in mooshin laga gudbiyay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mooshinka ayaa waxa laga gudbiyay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar Xildhibaan Maxamed Idris iyo qaar kale oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa mooshin u gudbiyay guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kulamada ugu horeeya ee kalfadhiga laxaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa in mooshinkaasi loo horkeeno xildhibaanada golaha shacabka wasiir Omar ayaa lagu soo eedeeyay laba qodob oo kala ah ku tumashada qodob ka mid ah dastuurka xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadanaha sida laga soo xigtay qaar ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka gudbiyay wasiir Omar faahfaahin intaan ka badan kama soo bixin mooshinkan laga gudbiyay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa horey waxa ugu soo baxay go'aano xasaasi ah oo ka dhan ah dhanka maamulka Jubbaland iyadoo wasaaraddu ay mar hakisay duulimaadyadii tagi jiray Kismaayo halka sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in ay waajib tahay dhammaan duulimaadyada tagaya Kismaayo iyo kuwa ka baxayo in ay soo maraan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho laakiin mareeyaha hay'adda duulista hawada xukuumadda Soomaaliya mar uu arrimahaasi ka hadlay dhawaan wuxuu sheegay in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay waajib ku tahay in ay kontaroosho duulimaadyada hawadeeda guux far badan ayaa ka dhashay musuqmaasuqii xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka maalintii shalay uu ku eedeeyay hay-adaha qaar ee dawladda federaalka ee Soomaaliya warar kale oo soo baxayana waxay sheegayaan in hanti dhowrka uu xilkiisa ku weyn karo warbixintaasi xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa hay-adaha qaar ee dawladda Soomaaliya ku eedeeyay
musuqmaasuq kadib markii ay sameyn waayeen xisaab celin. sidoo kalena hanti dhowrka uu sheegay inay adkaatay inay sii socoto baaritaankii ku aadanaa musuqmaasuqa. hanti dhowrka guud ee qaranka warbixinta ka soo baxday waxay ahayd ayaa waxaa ku jirtay in 18 milyan musuqmaasuq lagu sameeyay, taas oo uu sheegay xafiiska inaysan ogeyn halka ay ku baxday iyo xisaab celinteeda. hay-adaha uu ku eedeeyay xafiiska hanti dhowrka in ay xisaab celin sameeyaan, sidoo kalena ay adkaatay in baaritaan lagu sameeyo, ay ka mid yihiin hay-adda duulista rayidka iyo hay-adda dambi baarista ee CID. xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa warbixinta uu soo saaray waxay ahayd mid qodobaysan oo ku aadaneed lacagaha soo galay dowladda sanadkii 2018. lacagahaasi oo dhinacyada ay ka imaadeen ka mid ahayd midowga Yurub, boqortooyada Sacuudiga iyo Umbos. waxaana uu sheegay in dhaqaalahaasi afaraha badan ee soo galay dowladda Soomaaliya qayb ka mid ah xisaab celinteeda aan la haynin. lama oga dowladda federaalka ee Soomaaliya sida arrintan ay bulshada Soomaaliyeed kaga qancin karta, laakiin qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo durba arrintan falanqeyn ku sameeyay ayaa waxay sheegeen in musuqmaasuq xoog leh uu ka dhex jiro hay-adaha dowladda Soomaaliya. tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhawaan saxiixay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa. madaxda dowladda Soomaaliya ayaa horey waxay u shaaciyeen in ay dadaal fara badan ku bixinayaan la dagaalanka musuqmaasuqa. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wajahaya cadaadiskii ugu darnaa awid inta uu xilka hayo. qaar ka mid ah beelaha ku nool deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka Bari ayaa aad ugu kacay Saciid Dani. xog ay heshay warbaahinta ayaa waxay sheegaysaa in qaar ka mid ah beelaha ku nool gobolka Bari ay haatan bilaabeen abaabul ka dhan ah Saciid Dani. saddex ka mid ah beelaha ugu awoodda badan gobolka Bari ayaa lagu wadaa in ay dhawaan ku dhawaaqaan in ay joojinayaan wada shaqaynta ay la lahaayeen xukuumadda Puntland ee uu hogaaminayay Saciid Dani, isla markaana ay ku dhawaaqi doonaan shirweyne degdeg ah oo ay kaga tashanayaan aayahooda. beelaha oo kala ah Cali Saleebaan, Cali Jibraahiil iyo Beesha Dashiishe ayaa ku kacay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. beelahaasi ayaa waxay ka cabanayaan dhammaan ilihii dhaqaalaha gobolka Bari sida dekada iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi iyo maxjarka loo gacan geliyay dowladda Carbeed, isla markaana shaqo la'aan ay soo wajahday bulshadii ku nooleed gobolka Bari. siyaasiyiinta beelahan ayaa kulamo degdeg ah ku leh magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kol hore qaar ka mid ah hay-adaha Carbeed waxa uu ku wareejiyay shaqooyinka dekada magaalada Boosaaso iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaas. Saciid Dani ayaa isku dayay dhawaan in uu xaliyo cabashadan ka soo yeertay beelahan, walow xiisadda ay xilligaas yara degtay, balse iminka ay dib u soo cusboonaatay xiisadani. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa khilaaf siyaasadeed sidoo kale waxa uu kala dhaxeeyaa dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo shalay Saciid Dani ay dowladdu ka baajisay safar uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo si uu taageero ugu muujiyo saaxiibkiisa Axmed Madoobe oo dhawaan la filayo in lagu caleemo saaro magaalada Kismaayo. ugu dambeyntiina xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi ayaa ka jawaabtay hadal dhawaan ka soo baxay hogaamiyaha jabhadda hubaysan ee dulmidiid ee Cornel Saciid Cawil Caare. boos Mire Maxamed, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland, ayaa si adag u difaacay go'aankii madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi ee cafiska ahaa ee loo fidiyay jabhadda Cornel Caare. wasiirka ayaa sheegay in ujeedka cafiska ee loo fidiyay Cornelka iyo jabhadiisa ay Somaliland ku doonaysay in laga wada hadlo wixii tabasho ah iyo khilaafaad u dhaxeeya Cornelka iyo maamulka Somaliland. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland oo arintaasi ka hadlayay waxa uu yiri madaxweynuhu beelan ayuu la kulmay oo salaadiinteeda iyo odayaasheeda iyo waxgaradkeeda kala hadlay xal u helidda arrimaha Cornel Caare iyo Somaliland. ujeedkana ma ahayn maamulka Somaliland ka adkaan karin jabhadaas, laakiin mar waliba waxaan doonaynaa in maslaxadda lagu dhameeyo arrimaha jira. jabhadda uu hogaamiyo Cornel Caare ayaa dhawaan gaashaanka ku dhafatay hadal ka soo baxay madaxweynaha Somaliland oo ahaa in uu cafis u fidanayo jabhadaas haddii ay codsato. warkii aad kala socoteen daawadayaal channelka wararka dunida xiliga kan waa naga inta nabadgelyo.